kulanti wacan daawadayaal waxaan rajeynayaa fiicantiin insha allah. Intaa kadib maanta waxaan ka hadli doonaa wax ku saabsan maktabadihii taariikhda islaamiga soo maray iyo waxyaabaha yaryar oo isleeyahay sidoo kale aqoontaada bay kordhin doonaan oo ku saabsan wixii ay muslimiinta soo kordhiyeen, adduunku soo kordhiyeen. Soo dhawaada. Intaa kadib saynisyahankii Faransiiska ah ee Pierre Curie la dhihi jiray ayaa wuxuu yiri haddaan la gubi lahayn oo dhahay kutubtii muslimiinta ay qoreen waagii Andalus kadib dhicitaankii xadaaradaas, wuxuu yiri maanta galaxiga ayaan deganaan lahayn, ma fahamtay, galaxiga aan deganaan lahayn oo aan markaas guryo ka samaysan lahayn. taasoo ula jeedo heerka ay gaarsiisneed aqoonta dadka muslimiinta ee waagaas. kadib markii dhacdayna waxay sameeyeen qolihii ka guuleystay muslimiinta Andalus, waxay sameeyeen way gubeen dhammaan maktabadihii iyo kutubtii aqoonta iyo xadaarada ay ka tageen dadkaas. ma iga rumaysanaysaa waagaas kutub waxaa jirta ilaa iyo 30 buug ah oo qorayay in dilay ku sameeyeen atamka loo sii qaybin karo dhowr qaybood oo kala gudihiisa, waliba 30 buug ma aha, hal iyo laba iyo saddex ma 30 buug. arrintaas waxay markaa ku tusaysaa sida aqoonta heerka ay gaarsiisneed bani aadanka xadaarada gaar ahaan Andalus iyo muslimiinta joogtay. waxyaaba muslimiinta ay ku fiicnaan waxaa kaloo kamid ah cilmiga la yiraahdo cilmi tarjuma. muslimiinta oo kaliya kuma ekeen iyaga aqoontooda, waxay tarjumi jireen oo ay ku soo kordhiyeen adduunyada oo ilbaxnimo aad u sareysa noqotay in la soo tarjumo aqoontii waagaas tii ka horeysay, gaar ahaan luqadii Greek oo hore ee dhuntay. dadkii kale ee ka horeeyay dadka muslimiinta xadaaradii ka horeeyay way garan waayeen luqadaas, wayna fahmi waayeen, dadaalna way gelin waayeen. laakiin dadka muslimiinta dadaal bay geliyeen, aqoontaasna way soo tarjumeen, taasoo isugu jirta caafimaad, cilmiga juqraafiga, falaga iyo waxyaabo kaloo fara badan ba qaliinka iyo daawada ba ugu sii badnaatay. dadkaasna waxaa ugu sarreeyay nin la yiraahdo Alfarabi oo ahaa oo la dhihi kara aabaha cilmiga tarjumada, inkastoo iyaga ay sheegaan nin kale oo genius ku sheegaan markaasi macquulna maaha. Avicenna, genius Avicenna la dhahaa rajeyna ma aha arrin sax ah, waa been ay iyaga samaysteen. isagu wuu soo tarjumay run, laakiin afka carabi uu ka tarjumay, kadibna afka laatiinka ka tarjumay. laakiin kutubta dadka maanta yaalla ee ku saabsan Greek hore kulli abaalkaas waxaa loo celinayaa dadka muslimiinta, gaar ahaan Alfarabi oo soo tarjumay. afkiisa ayuuna ku qortay genius, ka qeyrtay genius inuu yiri wixii aan heli karo kutub iyo buugaag ahaa ee qoraalaha ee Greek hore afkooda ku qornaa 40 jeer wax ka badan baan akhriyay. sidoo kalena waxba igama aysan kordhin oo waan garan waayay luqadaas ilaa aan ka helay qoraaladii uu sameeyay Alfarabi oo yeelay bazaar. kutubtaas markuu helay ayuu ku dhiiraday inuu wax tarjumo. hadduusan isaga ahaan lahayna wuxuu qiray oo markaasi abaalkaasna uu celiyay inay kulli lumi lahaayeen wax allaala wixii ku saabsan cilmigii hore, aqoontii hore ee Greek. sidoo kale Jared ayaa sii dheer, Jared Cremona oo sidoo kale 10 sano ku joogay Andalus meel ka tirsan Toledo la dhaho, si uu u tarjumo 70 ilaa 80 buug wax ka badan ayuu soo tarjumay oo isugu jirta aqoonta dadka muslimiinta ay lahaayeen iyo sidoo kale wixii ay soo tarjumeen iyagaba isaguna ka sii tarjumay oo ku qoray afafkoodii iyagana ayaa sidoo kale kamid ahaa, gaar ahaan afka laatiinka oo waagaas ahaa luqadda cilmiga lagu tarjumi jiray. marka way badnaayeen waxyaabaha ay sidoo kale muslimiinta qoreen tarjumidaas ku saabsan, aad bay u fara badnaayeen, kama gaari karno. sidoo kale waxaa jiray waxyaabo ay muslimiinta daaha ka rogeen. waxaa kamid ah curintii warqadan casriga maanta jirto. hal abuurkii ugu horreeyay muslimiinta warqad way jiri jirtay oo waxba lagu qoran jiray, laakiin muslimiinta Andalus waxay ku guuleysteen warqadaas. taariikhda dib u raacno China ka imaan jirtay, caalamka oo dhan China oo u gudbin jirtay oo markaasi sameyn jirtay oo ganacsi geyn jirtay. warqadaas dhibaatada ay qabto waxaa kamid maadaama meel fog ay ka timid qaali bay ahayd, sidoo kale tayadeeda way leedaatay. marka arrintaas oo keentay in markaasi dadka ku nool caalamka inay iibsan waayaan warqadaas oo maadaama ay qaali ahayd. dadka Soomaalka fuqarada ah ee ardayda iyo markaasi macallimiinta dadka wax bartana way ku adkayd inay gataan, taasoo keentay Soomaaliya xitaa in wax looga barto. muslimiintii Andalus waxay sameeyeen warqad ka jilicsantii, ka tayo fiican, sidoo kale markii qadda lagu qoran aan aysan hoorina si qurxoon looga arkayo, midabkeedana midab cas ah oo haddii ay ku sameeyaan kana raqiis ah oo qof walba sawal ay taajirba sameyn karaan, ay iibsan karaan ayaan ula jeedaa ayay sameeyeen. taas oo adduunka ku soo kordhisay ilbaxnimo gooni ah oo san dadka kala gaarin. waxyaabada dadka muslimiinta soo kordhiyeen waxaa kamid ah adaa maqashay the father of the modern surgery, aabaha qaliinka casriga ah. haddaad maqashay ninkaas waa nin muslim ah, Zahraawi ayaa la dhahaa, Abulcaziiz bay kutubtooda ugu qoraan iyaga. ninkaas wuxuu sameeyey qaliinka dhuunta, qanjirada dhuunta kasoo baxa oo barara oo meelahan ku yaala, barara iyo weliba dhuunta iyo dhagaha iyo cunaha iyo afka iyo sanka aan dhahno. ninkii ugu horreeyay oo qaliin ku sameeya buu ahaa.
weliba asagoo adeegsanaya hab casri ah oo aan ahayn qalliimadii qadiimka ahaa. sidoo kale waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ah ku guulaystay qalliinka markuu sameeyo wuxuu samayn jiray daawo iyo ku shubi jiray, taasoo keenaysa inuusan qofka bukaanka uusan kusoo laabanin goobta caafimaadka uu hore isaga sii socdo, daawadina ay jirkiisa ku jirto. raali ahaada. waxyaabaha kale oo daaha ka reeg waxaa ka mid ahaa wuxuu ku guulaystay inuu sameeyo 200 oo qalabka wax lagu qalaa qaarkood ay ilaa iyo maanta yihiin kuwa la isticmaalo. marka haddii aan galno Zahraawi ama Abulcaziz taariikhdiisa way nala dheeraanaysaa fiidiyowga, marka haddaa u baahataan insha allah mawduuc kale ka samayn doonaa. wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.